marka qofku in uu u fahmo in social media uusan ahayn maaragtay wax de qofku uu ugu tala galay inuu dadka uu kula xiriiray ay tahay wax nolol qof bini aadam iyo noloshiisa oo ku dhisi karayo inay tahay in uu qofku u fahmo ba maaragtay aan dhalinyarta aan ugu baaqi lahayn sidaas u fahmaan aynan uga faa'iideystaan hadafyadooda iyo maaragtay noloshooda qof walba yoolka uu ka leeyahay inuu ku xaqiijiyo isagoo oo isticmaalaya maaragtay tiknoolajiyada sidii loo baahnaana oo isticmaalaya qof walbana uu ogaado in shirkadaha ama applicationada shirkadaha leh ha ahaadaan ama kuwa telefoonada leh inaan u nahay dad customer ah oo macmiil ah ina tahay qofka macmiilkana dukaanka waxa laga yaabaa dad riyal kugu dara inaad diido oo aad tiraahdo waad maxad iigu dartay oo maaragtay la xisaabtanto oo inaan u fahmin shirkadahan telefoonada iskala inaan macmiil u nahay telefoonkan qaadanayno quruxdiisa inaan ku qaadano ma service-ka ku jiraan ku qaadanayna sidaan service-ka uga faa'iideysan lahayn oo nolosheena aan ugu dhisi lahayn iyadana waan uga fikiraynaa social media-han isticmaalaynana dhalinyarta waxaan oran lahaa inay u arkaan inuu yahay qof customer ina tahay oo macmiil ah oo ama shirkadda WhatsApp-ka iskala ha noqoto Telegram-ta iskale applicationada dhan isku wada geey inaad qof macmiil u tahay adna wax bixinayso adna inaad hesho wax maaragtay lagu soo dabamarinayo oo faa'iido ah taasna waxay ku imanaysaa kulliba adigu wixii waad bixinaysaa oo lacagtii waad isticmaalaysaa ama wifi-gii waad isticmaalaysaa oo cost-igi adiga uu kugu socda laakiin adiguna mustaqbalkaaga sidaad wixii ugu dhisi lahayd oo uga faa'iideysan lahayd inaad uga fikirto waa arin suuragal ah oo macnaha waxyaabaha qofka oo noloshiisa dhisi kara